xubnaha baarlamaanka dowladda Puntland ayaa lagu wareejiyay xarun ay ku yeeleen magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug. Degmada Gaalkacyo ayaa ku wareejiyay Xildhibaan Xuseen Axmed Nuur oo kamid ah xubnaha baarlamaanka Puntland. Degmada Gaalkacyo Cabdi Jaamac Nugal ayaa sharaxaya gurigan ay wareejiyeen. waxa weeyaan saaka waxaan wareejinaynaa gurigan aan dhex taaganahay. gurigaas oo waagi hore ay lahaan jiray xanaanada xoolaha, laakiin aan ku wareejinaynaa saakayto baarlamaanka muxuu ahayto gobolka Mudug dowladda Puntland. xubnaha gobolka Mudug kamida baarlamaan kamida ayaan ku wareejinaynaa. aad iyo aad ba maartay xogaa guriga dayac badan uga muuqda. waxa loo baahan yahay in wax laga qabto. wasiirka howlaha guud ee gaadiidka dowladda Puntland ahna gudoomiyaha guddiga horumarinta iyo qaabeynta gobolka Mudug Cabdirashiid Maxamed Xirsi ayaa isaguna halkaasi ka hadlay. aad u soo dhaweynaynaa, aadna ugu faraxsanahay maanta halkaan gurigan xanaanada xooluhu hore u lahayd inaan ku wareejino xubnaha baarlamaanka ee gobolka Mudug. insha Allah waxaan u maleynayaa bayska ku yaal oo rasmiga Garowe oo xarunta dhexe ee golaha wakiilada Puntland marka laga soo tago gobolada uma badna baarlamaanku xarumo ay ku shaqeeyaan. waa bilow fiican, waxaan rajaynaynaa inay bilaabatay, laakiin gobolada kale oo dhan in loo gudbi doono. meel walbana baarlamaanka gobol kasta oo joogo inuu yeesho xarun oo ku shaqeeyo. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. waxay ballan qaadeen baarlamaanku sida ugu dhaqsaha badan gurigan bilicdiisa iyo haybadiisa inay dib u soo celin doonaan, ay noqon doonto base golaha wakiilada ee gobolka Mudug ay ku shaqeyn doonaan oo shaqadooda maalinlaha ay ku gudan doonaan, oo dadka ay wakiilka ka yihiin xaaladiisa ay insha Allah ugu kuurgali doonaan, ulana shiri doonaan. waxaanu intayada kale maanta marxaanti ka nahay kala wareejintaas guriga inay ku shaqeeyaan dowladda xubnaha ee golaha wakiilada ee Puntland. aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. gunaanadkii Xildhibaan Xuseen Axmed Nuur oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Puntland ayaa sheegay in xaruntani ay ku shaqeyn doonaan xilliyada fasaxa baarlamaanku ku kala maqan yahay. gurigan aad iyo aad baan u jeclaan lahayn baarlamaanka maadaama uu farac ku yeelanayo dawladdiina ay mataqaanaa hay-adaadkeedii oo dhan gobolka ka howlgalayso. qoladii horta xanaanada xoolaha gurigan guri ka qurux badan oo ka weyn oo 50 ah ayay degtay oo deegaanka ay la degan yihiin. baarlamaanku wuxuu nasiib u helay gurigan burbursan. horta waxaan ballan qaadaynaa insha Allah annagoo waxaan kula wareegaynaa magaca baarlamaanka annagoo wakiilka guddoonka oo madaxii noogu sarreeyay uu joogo maanta xoogaa hawl yeeshay. wuxuuna amray inaanu la wareegno magaciisana kula wareegno guddoomaha iyagu iyo baarlamaanka iyaga dhammaantood annagoo ka wakiila golaha wakiilada Puntland. waa la wareegnay gurigaas. aad baan uga mahadcelinaynaa guddigii aan hadda soo tirinay xubnihiisa dhammaantiis. xaruntani ayaa waxa ay ahayd xaruntii xafiisyada wasaaradda xanaanada xoolaha, waxaana ay ku taala magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug. Cabdullaahi Yare, TV-ga idaacadda SBC magaalada Gaalkacyo.